xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad jaamac batuun oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay isbedel ballaaran oo ay ku sameyn doonaan guud ahaanba cadaaladda Soomaaliland haddii ay ku guuleystaan talada wadanka waana kan isagoo faahfaahin ka bixinaya horumarka ay ku sameyn doonaan cadaaladda Soomaaliland. xukuumadda xisbiga wadani waxa aaminsan tahay in cadaaladdu ay tahay udub dhaxaadka nolosha bulshada oo dhan. xukuumadda xisbiga wadani waxay qiraysaa ku dhaqanka sharcigu inuu yahay hanaanka iyo habka lagu hirgeliyo quruxda dawladnimada qaran leeyahay. xukuumadda xisbiga wadani waxay ballan qaadaysaa in dastuurka dalka ay furi doonto. dastuurka dalkuna noqon doono mid kaabis iyo wax ka bedel lagu sameeyo lana falgala habka nolosha bulshada waxa la yiraahdaa social modern life-ka maadaama oo dastuurku uu leeyahay galduleelo badan dhanka saami qaybsiga bulshada Soomaaliland ee kuraasta dalka xuquuqo fara badan oo asaasi ah ka maqan dhalinyarada xuquuqo fara badan oo asaasi ah ka maqan haweenka xuquuqo fara badan oo asaasi ah ka maqan dadka ehlu xal walaaqdiga ee dalka ku nool in lagu dari doono. xukuumadda xisbiga wadani waxay ballan qaadaysaa inay sameyn doonto xeerka booliiska maadaama booliisku yahay xididka cadaaladda wada raabiya waaxda garsoorka si loo helo booliis tayo leh garanaya xaqa iyo xurmada muwaadiniintu ka mudan yihiin si loo helo booliis helaya xurmo iyo xaq uu ku leeyahay muwaadiniinta waxa muhiim ah in la helo xeerka kala xadeynaya muwaadinka iyo bilayska u qaabilsan ilaalinta amnigiisa taana way hirgelin doontaa xukuumadda xisbiga wadani insha Allah. xukuumadda xisbiga wadani waxay ballan qaadaysaa xeerasha dalka gaar ahaan xeerasha maxkamadaha yaala oo hadda ummadda lagu kala xukumo ahna kuwii dawladdii kacaanka iyo gumaystiga Ingiriisku ay dajiyeen inay ka dhigi doonto kuwo waafaqsan shariicada Islaamka lana falgala nolosha cusub ee bulshada la jaan qaada tiknoolajiyada la jaan qaada hab nololeedka bulshada Soomaaliland oo dhan waxa lagu sameyn doonaa kaabis iyo wax ka bedel kaamila waxayna noqon doonaan kuwa ay ku xardhan tahay astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fariinta madaxweynaha qaranka hadda dhinaca ay ka yihiin kuwa ay ku xardhan yihiin astaantii Soomaaliyeed iyo dawladdii Ingiriiska ee gumaysta ahayd. xukuumadda xisbiga wadani waxay damaanad qaadaysaa maxaabiista xorriyadooda qofeed laga qaado inaan muddo dhaaf jeelasha dalka ayna ku gaari doonin inay muwaadin kasto xorriyadiisa qofeed laga qaado maxbuus noqdaa muddada xabsiga uu ku jiro la bari doono xirfad. xukuumadda xisbiga wadani waxay damaanad qaadaysaa in bulshada tabaalaysan ee awood dhaqaale lahayn ee tacdiyada ka cabanaysa loo sameyn doono qareeno dawliya oo kharashkeeda xukuumaddaasi bixin doonto. Xasan Galadon Cable TV.